kulan wacan daawade ma ogtahay in maanta ay ku beegneed in la bilaabo doorashada Soomaaliya dib u dhicii koobaad ee doorashada maanta ayuu si rasmi ah u bilowday 25 Julaay waxay ahayd in la bilaabo doorashada kuraasta aqalka sare xagee ayuu marayaa dadaalada Jubbaland ay ku dardargelinayaan doorashada Soomaaliya Hirshabelle oo doorashadeedu caqabad ay ku noqon karto kuraasta la isku haysto ra'iisul wasaaraha kulan qadka uu la yeeshay madaxda dowlad goboleedyadana waa loogu hadlay dardargelinta doorashada beesha caalamkana lacagta doorashooyinka waa ay xanibeen sabab la xiriirta maamul goboleedyada muxuu noqon doonaa xalka kama dambaysta ee doorashooyinka dalka muuqaalka ayaan kaga hadli doonaa daawade haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channelkayga ku soo gaaro magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed wixii bixisiira joogisu ay ku furan tahay balse waan ka codsan lahaa inaad ila sii joogto oo aad igu soo biirto dib u dhac ayaa ku yimid doorashada kuraasta sanatarada aqalka sare oo waqti ahaan loo asteeyay 25 Julaay oo maanta ku beegan in lagu qabto magaalooyinka Muqdisho Jowhar Dhuusamareeb Garowe Baydhabo iyo Kismaayo guddiga doorashooyinka dadban heer federaal ayaa dhawaan xoojiyay habraaca lagu hagayo doorashada aqalka sare tan golaha shacabka iyo tan madaxweynahaba balse dib u dhaca waxa uu sababi karaa isbeddel ku yimaado jadwalka dib u dhacan waxaa la sheegay inuu ka yimid diyaar garow la'aan iyo cagajiidka maamul goboleedyada waxaana ugu dhow maamulka Jubbaland oo hawsha doorashada aqalka sare ay ugu harsan tahay in madaxweynaha maamulkaas liiska musharaxiinta u gudbiyo guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa kaliya muujisay diyaar garow xoogan waxaana dowlad goboleedkaas ay soo bandhigtay goobta doorashada lagu qabanayo guddiga baarlamaan ee u fududeynaya gudbinta liiska musharaxiinta ilaa iyo haatan ma jirto liis musharaxiin oo la hayo waxaana sidoo kale fasax ku maqan baarlamaanka Galmudug oo aan isu imaan ka hor 1 Agoosto mana muuqdo ololo doorasho deegaanadaas ka socda arintani waxaa mugdi kale ay sii gelinaysaa doorashada dadban ee federaalka oo muddo dheer dib u dhacday welina u muuqata mid sii jiitamaysa Hirshabelle guud ahaan madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxay ku sugan yihiin Muqdisho sidoo kalena xildhibaanadii dowlad goboleedka ayaa Muqdisho ku sugan taasi waa walaac kale gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ambassador Cali Siciid Fiqi ayaa maanta magacaabay xubnaha xildhibaanada golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare Koonfur Galbeed waxay noqotay maamul goboleedkii labaad ee magacaaba guddiga xildhibaanada ee doorashada xildhibaanada aqalka sare iyadoo hore ay u magacaabeen Jubbaland Puntland kama jiro diyaar garow doorasho dani iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxay ku jiraan diyaar garowga xuska maalinta asaaska maamulkaas sidaa daraadeed ma muuqato diyaar garow loogu dareemayo inay ka qabsoonto doorasho maanta madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka waxay ahayd inay soo gudbiyaan 6 musharaxiin oo aqalka sare 17 ilaa 23 Julaay kol hore ayaa la soo dhaafay mana jiro hal madaxweyne dowlad goboleed oo ay soo gudbiyeen liiska musharaxiinta aqalka sare taas oo caqabad ku ah doorashooyinka dalka taas beddelkeed xitaa maamulada qaar weli ma aysan magacaabin xubnaha golahooda wakiilada ee ka shaqeynaya doorashada aqalka sare sida Galmudug Hirshabelle iyo Puntland musharaxiinta u tartamaysa mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa la diiwaan gelinayaa markuu soo gudbiyo madaxweynaha dowlad goboleedka waxaana laga doonayaa musharaxa ragga $20,000 halka musharaxa dumarka ahna laga doonayo $10,000 mana jirto ilaa iyo haatan hal musharax oo ay diiwaan geliyeen guddiga doorashooyinka Hirshabelle markaynu ku laabanno khilaafkeedu waa uu sii xoogaysan karaa maadaama madaxweynaha maamulkaas ay haysato caqabada qancinta beel ka mid ah beelaha Abgaal Cusmaan oo muran badan ka qabtay in la dudsiyo kursigooda matalaada Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynayaashii hore ee dalka waxay isaga soo laabteen cadaalad shabeellada dhexe natiijo la'aan kadib markay ku guuldareysteen inay xaliyaan cabashada ay qabaan dadka deegaanka taas oo sabab u noqon karta in doorashada Hirshabelle dib ay u dhacdo sida wararku ay sheegayaan waxaa fashilmay kulamo ay la qaadanayeen qaar ka mid ah dhaqanka deegaanka oo ku adkaystay in kuraas ka dhaxaysa beesha harti Abgaal kuwaas oo ku kulan suntan hab 141 iyo hab 146 dib loo soo celiyo kadibna la wada hadlo halka madaxweynayaashii hore ayna quul dareenayaan in la wada hadlo taas oo muuqanaysa inay ka cagajiidayaan soo celinta kuraasta mid ka mid ah taas oo ku fadhiyo xildhibaan Maxamed Abuukar Islo Ducaale kuna heebaa kusimaha imaamka beesha Mudullood madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaba ayaa u ballan qaaday dadka reer Cadalle inaan la qaban doonin doorashada labada kursi ee lagu muransan yahay inta laga gaarayo xal rasmi ah beelaha Cabdalla Carood iyo Habar Nugaal ayaa iyaguna dhawaan waxay daboolka ka qaadeen jiritaanka kuraastaas laga boobay 2012 oo ay sheegeen inuu duudsiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo kusimaha imaamka Mudullood dhinaca kale Galmudug qoorqoor walow uu joogo Dhuusamareeb haddana baarlamaanka dowlad goboleedkaas waxay ku jiraan fasax ilaa 1 Agoosto ma shiri doonaan
ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa xalay waxay wada hadal qadka Zoom-ka ka yeesheen xaaladii ugu dambeeyay ee doorashooyinka. wada hadalka Roble iyo maamul goboleedyada ayaa waxay dood dheer ka yeesheen sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka, arrinta Somaliland, hirgelinta soo jeedinta guddiga dib u heshiisiinta Gado iyo xalinta caqabadaha weli ka jira doorashada. Beesha caalamka waxaa la sheegay inay shuruud ka dhigtay qabashada doorashada aqalka sare si ay u bixiso dhaqaalaha doorashada, laakiin maamul goboleedyada iyo guddiyadooda waxay doonayaan in dhaqaale lagu siiyo doorashada aqalka sare, taasoo beesha caalamka ay diidan tahay. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xubnaha la socda ayaa shalay magaalada Kismaayo u tagay dardargelinta qabsoomida doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Geesta kale, madaxtooyadu waxay wadaa dhaqdhaqaaqeeda doorashada, inkastoo aysan jirin olole weyn oo wada madaxweyne Farmaajo. Haddana waxaa la tilmaamayaa in wakiilo u dirsado dowlad goboleedyada, qaar ku jira guddiyada, iyo sidoo kale kuwa kale oo si dadban ula shaqeynaya madaxtooyada. Dadaaladu waa ay socdaan, siyaasadduna waxay u jihaysatay doorasho, balse weli lama bilaabin. Daawade yaa qaadan doona Masuliyada dib u dhaca maanta? Hirshabelle, Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Puntland, Somaliland, maamulka gobolka Banaadir, ama ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, ama xitaa madaxweyne Farmaajo oo doorashada kol hore wareejiyay. Commentigeena ugu reeb aragtidaada. Nabadgelyo.